Sixiroole India u dhashay ayaa la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay kadib markii uu sheegay inuu naftiisa ka badbaadin karo xayndaabka sanduuq adag iyo badda hoosteeda. Waxaa lagu riday webiga Jang ee dalka India. Waxa uu ku xirnaa silsilado ajay iyo xarako adag oo aanay furi karin. Laakiin arrintu waxa ay ku soo biyo shubatay fashil ilaa iyo hadda lama hayo meel uu jaan iyo cirib dhigay. Sixiroolahan oo la yiraahdo Shanshal Lahari ayaa waxa uu daadegay dhanka webiga isaga oo sanduuq ku jira ayaa wiish lagu dalacay. Qoyskiisa, warbaahinta iyo booliskuba goobta waa ay taagnaayeen oo dhacdada ayay isha ku hayeen. Haddii ay suurto gasho inaan nafteyda xoreeyo, arrintaasi waxa ay noqonaysaa mid cajiib ah. Haddii ay suurtagali weydana waxa ay noqon doontaa masiibo. Waa sida uu sixiroolaha yiri. Sida ay ka soo xiganayso jariirada Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxda. Laakiin Lahari oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo 40 jir ah way u suurtagali weyday inuu biyaha ka baxo. Arrintaasi oo keentay in biyihii la baaro, laakiin isku dayaashii la sameeyay waa lagu fashilmay. Waa sida ay sheegeen shakhsiyaad qoyskiisa ka mid ah. Lahari 21 sano ka hor ayaa waxa uu sameeyay xaalad tan la mid ah oo isla goobta uu ka fuliyay. Waxaa la dhexgeliyay sanduuq dhalo ah oo rasaasto aanay kareenin iyo oo silsilado iyo qunfulo ay ku xiran yihiin. Laakiin waa uu ka soo baxay xilliga 29 ilbiriqsi oo qura ay ku qaadatay. Laakiin dadkii daawadayaasha ahaa ayuu dhibaato kala kulmay kadib markii ay arkeen inuu ka baxsanayo albaab ama irid dadka oo dhani ay arki kareen.